بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد محمد أحمد دكتور بانا كسر وهذا جنال كيني دكتور بانا إن شاء الله ما أنتو حق هذا الدونا برنامج وهوري نوغوسي السعودي أيا سيودينا أو هبلس هذا أو هدليني هوري وحاكا سعودلنا إلى سيدا هبلس هبلس كان عندها هبلس كمروخها هبلس كلفها يسيدو كالهبلس كمخاركا مركمان أنتو حق هذا الدونا هبلس كنفس الشذا habdhiska neefsashada ayaa ka hadli doonaa marka waxaa jir waxyaabo base ah habdhiska waa system weyn ah balse waxaa jir waxyaabo aasaas ah oo usiga ka soo bilaawdo kow marka qofka bini'aadamka wuxuu ka soo bilaabmaa cells markay bataan ay isku tagtagaan waxay sameynayaan wax la yiraahdo tissue marka uu sii balaaranaya marka asiga markuu iska sii tagtago uu sii bato wuxuu noqonayaa organkii markay uu noqdo organile kale markuu helo ama organiska markay sii bataanna waxay noqdaan system ayay noqdaan marka systemkii sidaas ayuu ku imaanaya marka waa organism badan oo isku tagay marka respiratory systemka wuxuu ka kooban yahay organism badan organiskaas marka waxaa ka mid ah kow waxa waaye sanka ayaa ka mid ah labo waxaa ka mid ah pharynx saddex waxaa ka mid ah larynx trachea bronchus iyo larynx intaas isku tagay marka waxay noqonayaan respiratory system marka habdhiska respiratory systemka shaqadiisu maxay tahay marka shaqadiisu way farabadan tahay laakiin saddex ayaa ka soo qaadanayna ta ugu horeyso ah qofka waxay ka saacidaa in uu helo hawada in uu qaato sidoo kale waxay ka saacidaa habdhiskan shaqadeeda kale waxay tahay habdhiskan hawada in la soo tufo oo ah exhalate oo la sameeyo ama oo la soo neefsado tan saddexaad waxay tahay marka mid aad muhiim ah oo ah marka in ay sameyso gaseous exchange oo ah oxygenka iyo carbon dioxide inay isku bedesho marka processada marka ay ku dhacayso marka respiratory systemka maxay tahay ilaa saddex process waaye marka waxa ku hormarina qaybta koowaad oo ah ventilationka waxa waaye qofka markuu hawo qaadanayo hawadan caadiga ah oo environmental markuu qaadanayo ayaa la yiraahdaa ventilation marka waxa loo kala qaadaa laba qaybood oo kala inhalation iyo exhalation waxa waaye qofka markuu hawada qaadanayo hawadii ayuu qaadanaya sanka ayuu ka qaadanaya wuxuu geenayaa marka sambabaha ayaa la geenaa sababaha marka la geeyo inhalation waa processkaas waxaa jirta marka process kale oo cagsi ku ah oo la yiraahdo exhalation oo ah hawadii in dibadda loo soo saaro iyadoo ah marka carbon dioxide hawada marka hore oo inhalation lagu qaadanayo waxaa la yiraahdaa oxygen midda markii la soo isticmaalo jirka ay gasho oo wasakh ay soo noqoto marka oo la soo tufayo banaanka dibadda loo soo saarayo waxay qaadanaysaa magac la yiraahdo carbon dioxide marka intaas ugu baahan ventilationka waxaa galinaa marka internal respiration iyo external respiration hadda ku hormarno marka external respiration waxay ka dhaxlaysaa marka hore marka waxaan dhahnaa sambabaha ayay ka dhaxlaysaa marka si uu dhacaysa marka waxay u dhacaysaa qofka wuxuu qaadanayaa hawo ayuu soo qaadanayaa fresh air markuu sanka ka soo qaato hawadii waa la soo gudbinayaa waxaa la geynayaa marka sambabihii marka la geeyo kadib hawadii waxaa la raacsiinayaa hawo markaas manaqanaysa waxaa leeyahay marka oxygen aan dhahno oxygenkii qofka soo qaatay waxaa la raacsiinayaa marka khulkhulka dhiig ayaa la raacsiinayaa si loo gaarsiiyo jirka meelihii loogu baahnaa taas ayaa la yiraahdaa marka external respiration sidaas la mid ah marka hawadii marka la soo isticmaalo markay la soo isticmaalo ay soo wasakhowdo carbon dioxide markay soo noqoto waa la soo tufayaa marka jirka wasakh waaye jirka ma lagu sii haysanayo marka jirka marka maadaama la soo naqayo processka soo maraysa waa tii hadda aan sheegnay cagsigeeda waxay kusoo bilaabinaysaa tan marka liver aan dhahe sambabihii ayaa laga soo qaadaya hawadii waxaa la keenayaa banaanka qofka uu soo neefsanaya marka intaas hadda ugu baahna marka inhalation maxay tahay marka inhalation wax kale ma ahan hawadii hadda aan kasoo sheekeynay oo qofku uu soo qaatay sambabihii ayaa la geeyay dhiigyaa lasoo raacsiiyey marka meeshay kasii bilaabanaya dhiigiyaa marka hawada laga sii qaadayaa oo oxygenta waxaa la geenayaa marka tissue-yadii loogu baahnaa ama qaybihii jirka loogu baahnaa ayaa la geenayaa markii la geeyey kadib jirka wuu isticmaalayaa oxygen la-aan jirka ma shaqayn karo markuu soo isticmaalo kadib waa la soo celinayaa marka iyadoo wasakh ahaan oo carbon dioxide ah marka qaabka loo soo celinayo waa tii hadda cagsigeeda waxaa laga soo bilaabayaa meeshii la geeyay targetka ahaa oo tissue markii laga soo qaado kadib waxaa la soo raacsiinayaa khulkhulka dhiiga marka la soo raacsiyo kadib waxaa la keenayaa sambabaha
sanbabaha ayaa laga sii qaadaya kadib qofka wuu soo neefsanaya iyadoo ah marka carbon dioxide oo ah hawo wasakhaysan oo waxaas u baahan markaas dhirta ayaa u baahan. marka intaas hadaa kaga gudubno organiskii ayaa markaan toos u aadaynaa. organka ugu horeeya aan ka hadlayno waxay tahay marka sanka waa meesha ugu horeyso qofka uu ka qaadanayo neefta. sankan marka wuxuu leeyahay laba duleel, labadaas duleel waxaa la yiraahdaa nares. labadaas duleel marka waxaa jira wax kala barayo oo la yiraahdo septum ama nasal septum ayaa la yiraahdaa. waa midka inta godkan iyo godkan ayuu u dhaxeeyaa marka septum ayaa la yiraahdaa. sidoo kale waxaa jira sanka labadiisa god iyo afka godkan weynka oo afka iyo labadaas duleel oo sanka waxaa jira wax isku furan maahan wax oo waxaa jira marka oo septum asagana oo u dhaxeeya. waxaa la yiraahdaa marka palate ayaa la yiraahdaa. Soomaalidu waxay u yaqaanaan dhanxaniga. waa midkan koreysaan oo afka markaa saa u kala qaadid sankana saa u qaadid qaybtan koreysaan waay marka qaybtaas palate ayaa la yiraahdaa iyadana. marka waxay kala alaaynaysaa marka labadaas duleel in isku furmaan afka duleelkiisa iyo sanka labadaas duleel. marka sanka gudihiisa waxaa ku jira marka wax la yiraahdo mucous membrane. mucous membrane waxa waaye waa waxyaabo oo qoyan oo xabka ah. qofka markuu sanka fartiisa geliyo wuu arkaa. marka waxyaabahaas maxay tahay marka maxayna faa'iido ay noo leedahay maxay tahay? ayaga faa'iido ee koowaad ee noo leedahay waxay tahay marka qofka markuu hawada qaadanayo sanka ay maraysaa ama sanka markay marayso markaas waxyaabahaas oo dhegdhega oo sanka ku jiro waxay ku helaysaa marka wixii bacteria ahaa ama wixii oo bus iyo boor oo la socday hawadaas meesha ayay ku herayaan marka hawo oo nadiif ah ayaa gudbaysa marka shaqadeeda taas waay. sidoo kale waxaa sanka gudihiisa ku jiro timo yaryar oo xaad ah oo cilia la yiraahdo. ciliadaas marka iyadana waxay qabataa shaqadii hadda mid la mid ah oo qofka hawo markuu qaadanayo oo saan u jiidayo hawadaas marka markuu saan u jiidayo marka hawadii waxaa ku jirto waxyaabo wasakh ah iyo waxyaabo bacteria marka iyadana waa meeshaas ayay ku herayaan marka hawadii oo nadiif ah ayaa sii gudbaysa marka sanka marka sidaas waaye. markii shaqada ay saas tahay marka waxaa jira wax la yiraahdo marka paranasal sinuses and sinuses waxa waaye waa godad waaye oo ka buuxo air ama hawo oo ka buuxdo oo ku yaalo facial boneska ay ku yaalaan marka. intaas hadaa ugu soo baxno marka nasal cavity waxaa galinaa marka pharynx. iyadan waxay ka mid tahay organka labaad ee respiratory systemka. pharynx marka muxuu yahay? pharynx waxa waaye waa meel ay marto cuntada iyo hawada. cuntada iyo hawada ayaa wada marto. pharynx marka sanka marka laga baxo dhuunta inta la gaarin sankana inta meelaha ayuu u dhaxeeyaa marka sanka iyo dhuunta inta la gaarin ayuu u dhaxeeyaa marka waxaa la yiraahdaa marka pharynx. pharynx sidoo kale magac labaad ayaa la yiraahdaa ayaa jira oo loo yaqaan throat. marka pharynx ayada waxaa loo qeybiyaa ilaa iyo 3 qaybood. qaybta kore waxaa la yiraahdaa nasopharynx. qaybta dhexe waxaa la yiraahdaa oropharynx. qaybta hoosena waxaa la yiraahdaa larynxopharynx. marka sidoo kale pharynx waxaa laga helaa tonsils. tonsilska maxay yihiin marka? tonsilska waa xumanka waaye labadan dhinac ay ku kala yaaliin. xumanka marka maxay yihiin? bini'aadanka faa'iido maxay u leeyihiin? xumanka waxay qabtaan shaqooyin aad iyo aad muhiim u ah. waa lymphatic drainage ama waxay sidoo kale waxay ka qayb qaataan marka qofka hawada uu qaadanayo ama cuntada uu cunayo. waxaan sheegnay pharynx in ay labadaba marto. cuntadana way martaa, hawadana way martaa. marka cuntada iyo hawada iyo biyahaba wixii bacteria la socday iyo wixii pathogens la socday ayay ka reebaysaa marka meesha ayaa lagu reebaya marka cuntadii oo nadiif ah hawadii oo nadiif ah ayay sii maraysaa marka labadaas shaqo ay noo qabtaan. waa xubin aad iyo aad u muhiim ah. marka waxaa jirta marmar qaar oo ku dhaco inflammation ama caabuq uu ku dhaco oo la yiraahdo marka caabuqaas uu ku dhaco waxaa la yiraahdaa tonsillitis ayaa la yiraahdaa oo inflammation ku dhaco tonsilska waaye. marmar waxaa la arkaa marka qofka haduu wuxuu leeyahay marka caabuqaas marka wuxuu leeyahay qandho zaid ah qofka waxaa la arkaa inuu cuntada laqi kari waaye hataa aan dhuufta taa markuu naqayo inuu xanuun dareemo ayaa la arkaa marka qofka hadii ku sii dheeraato marka waa laga maarmaa ayaga organiskaas waa laga maarmaa waa laga jari karaa qofka dibad ayaa loo soo saari karaa. tonsilska marka taas waaye. qofka markaas markuu hawadii sii qaato cuntadii hawada marka waxaan dhahnaa marka jeekin aan filter waxaa lagu soo marka hore sanka hadda marka filterkii labaad ayaa sii maraysa marka oo ah tonsilska ayaa marinaya. intaas marka hadda saas ugu baxno waxaa galaynaa marka larynx
waxa waaye marka dhuntan oo hawada marayso oo la yiraahdo trachea ayay ka koreysaa. Dhuntan markay ay tahay waxa ka koreeya wax yar oo koofid oo kala saan ayaa jirto, taas la yiraahdaa marka larynx. Larynx-ka sidoo kale waa meesha uu ka soo baxo codka, meesha uu ka soo baxo waaye. waxa afka magaceeda labaad oo la yaqaan waxay tahay marka voice box. waxaa jirta marka vocal cords ayaa ka caawinaysa marka in uu codka soo baxo. vocal cords marka waxa labadii vocal cord space between two vocal cords waxa la yiraahdaa glotis ayaa ku jiro. Glotiska korkiisana waxa saaran marka wax la yiraahdo epiglottis. Epiglottiska waa marka meesha aan hadda rabay. Epiglottiska marka maxay tahay? Epiglottis waa sida albaab xirmaayo furmaayo. wuxuu u dhaxeeyaa marka cuntada tubadan marayso hawada iyo tubadan marayso cuntada. Varnakiska marka saas waa marka tubadan cuntada marayso iyo hawada marayso aan dhahe ayuu u dhaxeeyaa. marka tubada mar walba waxa soo horeyso tubada hawada marayso oo trachea la yiraahdo. tubada cuntada marayso way ka gadaaleysaa, ayadana waxaa la yiraahdaa marka esophagus ayaa la yiraahdaa. labada tuba marka tan inay ka soo qabo tubadan soo horeyso inay tahay midii hawada qaadaysay, tan dambeysana inay tahay midda cuntada qaadaysay oo esophagus iyo trachea. kana ka soo qabo in uu yahay fartan ka soo qabo inay tahay epiglottis. marka epiglottis waa kanay labadii tubana waa kuwan. saa markay kaliin tusaalo kale qofkan waxa ka soo qabanayna in uu cunaayo cuntada marka la cunaayo tubadan hawada marayso epiglottiska wuu xiraa, dabool la saaraa. tubadan kale oo esophagus-ka oo cuntada marayso way furnaaneen, sababtoo qofka cuntada markuu soo cuno meeshay ku soo dhicayso way cuntada afka markay ku soo gudubto tubadan ay soo maray kadib caloosha u sii gudbinay. tubadan marka way furnaaneen qofka markuu cunto cunaayo. cuntadii qofka markuu dhameysto tubadan waa la xirayaa, marka waxaa furmayso tubadii hawada. qofka wuxuu qaadanayaa hawo. marka waxa la diidayo waxay tahay epiglottiska wuxuu diidaa tubadii loogu talagalay cuntada inay marto inay hawo soo gasho. sidoo kale wuxuu diidaa tubadii loogu talagalay inay hawada martana inay cunto soo gasho. marka labada dhinacba waa la diidaa. marmar qaar waxaan dhacdaa qofka intuu cunto cunayo inuu ku dhex hadlo kadibna uu soo qunfaco kadibna sanka inuu ka soo baxo wuxuu cunaa. markaas haddii ahaaleed bariiska ugu yar inuu sanka ka keeno. maxaa sababta marka? wax kale ma sababin, waa easy. cuntadii oo cunayay epiglottiskii ayaa cuntadii uu cunayay marka uu soo cunayay oo la rabo marka inay soo gasho tubadii oo cuntada qaadaysay ma galeysay, waxay galay tubadii hawada maraysay. tubadii hawada maraysay ayay galay. markay gasho marka wax khalad ah ma loo baahno. qofka marka uu soo qunfaco jirka uu soo qunfaca, markuu soo qunfaco kadib cuntadii markaas cunay ayaa sanka ka imaanaysa. marka sanka ayaa saas ugu soo baxaysaa. marmar qaar waa la arkaa xaaladaha sidaas oo kale marka iyadoo hadda hadalka soo koobno larynx-ka maxay tahay marka codka ayay soo saartaa. marka intaas hadda ugu soo gudubno marka varnax maxay tahay. varnax ayaa noogu xigo. varnax maxay tahay marka varnax waxay tahay marka aydan waxay ka hooseysaa andhe trachea ayaa ka hooseyso. afwan varnax waxaa ka hooseyso trachea. trachea maxay tahay marka? trachea waa tubada marayso hawada waaye. waxay ka samaysan tahay waa wax cartilaginous, waa waxyaabo cartilage ayay ka samaysan tahay. cartilage-kaas marka waxay soo maraysaa marka hawadii in ay soo marto ayaa loogu talagalay. waa waxyaabo warwareega sida maxana faraantiga oo kale ay warwareegsan tahay cartilage-kiskooda. marka hawada ayaa soo marto. marka hadda wax dib u laabto oo larynx marka ka soo hadlaynay waxaa ka iloownay waxa la yiraahdo Adam's apple. Adam's apple maxay tahay? Adam's apple waxay tahay waxaan qofka badanaa waxa lagu arkaa ragga oo saan u soo taagan waay. runta marka fiirino qaybtan saan u soo taagan ayaa la yiraahdaa Adam's apple. maxay tahay marka maxaa sameeyay Adam's apple-ka? waxaa sameeyay marka cartilage-ka ku hareeraysan meeshaas. cartilage-kaas marka wuxuu ka saacidaa cartilage-kaas ayaa sameeyay marka cartilage-kaas waxa la yiraahdaa marka thyroid cartilage. thyroid cartilage-kaas ayaa marka ayaa sameeyay marka Adam's apple. badanaa waxaa lagu arkaa ragga badan wuxuu soo saaraa marka codkooda ayuu wax ka dhigaa cod xoogaa weyn ah. marka la fiiriyo dumarka codkooda iyo ragga codkooda waxa u dhaxeeya farqi. marka codka ragga waxa saas ka dhigaya waxay tahay marka Adam's apple oo saan soo taagan geedka ayaa la yiraahdaa marka. okay marka hadda ku soo laabana trachea waa xanaanay hawada wadada ama tubada marayso hawada waaye. tubadaas marka waxaa jira marka filter kale ayaa jira marka oo hawadii oo soo martay ayaa la sii filter gareynaya marka wixii pathogens ah ayaa laga sii reebaya marka.
tan waa markii ugu dambeysay jeekinkii ugu dambeeyay waayo filterkii ugu dambeeyay trachea waxa hawada ka soo gudubto si toos ah marka wax u galaysaa sanbabaha ay si toos ah u galaysaa marka waxa ku jiro marka ayaga waxyaabo oo mucous membrane ay leeyihiin sida hore ka soo hadalna iyo cilia ay leeyihiin oo waxyaabaas wasaqda ka calinayso soo kale waxay leedahay hawadii la soo qaad markaas waxay ka dhigaysaa wax xoogaa diirimaad ay u sameynaysaa sidoo kale wax qoyaan ay ka dhigaysaa kadib qofka wuxuu sii gudbayaa hawada maxaa la dhahaa wuxuu sii gudbaysaa sanbabaha marka waxaa jira marka waxa la yiraahdo organkii kale oo nagu sii xigay waxay tahay bronchi marka bronchi waa laba tubo oo ka soo farcamaan trachea labadaas tubo left iyo right ay kala xigaan marka labada sanbab ay kala galayaan marka labadaas tubo markay weyn yihiin waxa la yiraahdaa bronchi way si yaraanayaan marka waxay noqonayaan bronchiole way si yaraanayaan marka waxay si noqonayaan alveolus waa marka meesha ka dhaxdhacaysa gaseous exchange alveolus waa ayaga sacs waa oo elastic ah hawada markay ku jirto way kala fidsamayaan hawada markay ka baxdana isku soo ururayaan sida buufinka oo kale waa buufinka hawada marka lagu shubo wuu weynaanaya markii hawada ka baxdana waa ognahay way yaraanaysaa marka sidaas waa marka respiratory rate-ka qofka bini aadamka xaddiga neefsashadiisa halkee loogu baahan yahay xaddiga neefsashada marka la cabirayo waxay ka mid tahay waxyaabaha aad iyo aad muhiim ku ah oo qofka markii la geeyo goob caafimaad laga cabirayo haddii ahaaleed xaaladaha emergency-ga waxaa jira waxaa la isku yiraahdaa marka waxyaabahaas vital signs ayaa la yiraahdaa waxaa ka mid ah blood pressure-ka temperature-ka ka mid ah waxaas ayaa ka mid marka iyadana way ka mid tahay marka respiratory rate marka way ku kala duwan yihiin caruurta dadka ilmaha halka sano jiro dadka 16 sano jiro iyo dadka waaweynka way ku kala duwan yihiin marka caruurta yaryar oo hadda dhashtay waxay u dhaxayaan neefsashadooda zaid waaye 30 ilaa 60 halkii minute ay neefsanayaan marka halkii minute waxay neefsanayaan 30 ilaa 60 mar okay marka sidoo kale dadka caruurta aandhe oo hal sano jirka waxay neefsanayaan ayagana 18 ilaa 30 sidoo kale dadka xoogaa 16 sano jirka ay waxay u dhaxaysaa 16 ilaa 20 dadka adultiga marka dadka waaweynka way ka yaryihiin 12 ilaa 20 ay waxay marka ay neefsashadooda respiratory rate-kooda intaas taas ugu baxno waxa galina marka xibintii kale aad ku muhiimad oo waxa yoolkeena u soconay ahayd oo ah marka xibintan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa langiska ama sanbabka halku ku yaala marka hore sanbabka wuxuu ku yaalaa labadan qaybood ayuu ku yaalaa xabadka ayuu ku yaalaa laba sanbab waay marka qayb dhanka midig xigto iyo qayb xigto dhanka bidix qaybta marka qaybtaas labadaas qayb ayaa kala leeyihiin marka sababaha marka labadaas qayb ayay ku kala jiraan qaybta xigta marka right-ka iyo qaybta xigta left-ga ayay kala yihiin qaybta left-ga xigta waxay loobiska marka xisaabnaan laba loob ayay leeyihiin qaybtan kale right-ka xigtan waxay leeyihiin saddex loob qaybtan left-ga saddex loob marka waxay ku lahaatay waxay tahay waxa ka agdhow waxa la yiraahdaa wadnihii ayaa ka agdhow wadnihii ayaa marka booska loobka saddexaad wadnihii ayaa galaya marka loobiskaas marka waxa u dhaxay horizontal feature iyo oblique feature labadaas ayaa kala qeybiyay marka sanbabka waxa jira marka waxa difaacaan waxyaabo aad iyo aad u badan oo ugu horeys marka lafahan feeraha ah feerahan lafahan adag ayuu alla ugu dhigay difaac in uu difaac ugu dhigay sanbabaheena sidoo kale dhexdan waxa ku jirta labada sanbab dhexdooda waxa ku jiro laf kale la yiraahdo mediastinumka marka waxa ka hooseeya asagana wax xubinyaana aad muhiim ayaa difaac u ah waxa kamid ah markaas wadnihii ayaa ugu muhiimsan iyo xibnaka iyo wax organs kale oo muhiim ah marka intaasba lafaas ayaa lagu alaaliyaa marka xibnahaas gudaha ku jira oo jilicsan oo jirka aad iyo aad muhiim u ah hadee dib gaaraan marka aad u halis qofka nafsadiisa u galayso marka ilaahay wuxuu u sameeyay lafafkan marka oo adag marka hadda u imaan marka sanbabka marka naftirkiisa lafaas kaliis ilaahay kuma sii akeen balse waxa loo sii sameeyay xubab kale ayaa loo sii sameeyay waxa jir marka laba xub oo dahaaro sanbabka waxa la yiraahdaa marka bilura ayaa la isku yiraahdaa labadaas xub marka vesicular bilura iyo bilateral bilura ay kaliin vesicular bilura iyo bilateral bilura ay kaliin marka vesicular bilura waa midka wadnaha aan dhahay sanbabka aadka ugu dhow xubka sanbabka aadka ugu dhow oo asiga dahaaro waay vesicular bilura bilateral bilurana waa midka
ka fog wuxuu daboolaya ayaga just cavity-ga ayuu daboolaya ayaga marka labadaas xub dhexdiisa waxaa ku jiro dheecaan biyaha oo la yiraahdo marka fluid ayaa ku jiro oo la yiraahdo serous fluidkaas marka wuxuu ka caawinayaa qofka jug xoog badan haday ku soo dhacdo jugtaas waxay soo gudbaysaa lafihi ayaa inta ugu badan difaacayo haday dhacdo marka inay wax ka soo gudbaan lafihi waxa si aysan toos ugu sii dhaawac gaarsiinin sanbabaha biyahaas ayaa hadana ayaa si difaacaya marka labadaas xub ayaa lagu alaaliyaa marka sanbabka marka waxay leeyihiin meelaha ay wax ka soo galaan waxa la yiraahdaa hilum hadii ahaleed bronchus meelaha ay galayaan iyo blood vesselska sidoo kale qaybta kore sanbabka abacis ayaa la yiraahdaa qaybta hoos waxa la yiraahdaa base ayaa la yiraahdaa sanbabka marka asiga badanaa wuxuu ka shaqeeyaa marka la taagan yahay cardiovascular system kana xubin aad iyo aad muhiim ayuu u yahay qaybteeda gugaarina marka wuxuu muhiim u yahay marka oxygen-kii dhiigii in ay ka dhigto deoxygenated blood oo dhiigii qofka jirka markuu soo isticmaalo in ay oxygen ku darto oxygen ay ku darto way iska caddahay sababta waxay tahay qofka markuu hawo qaato aawadi iyadoo nadiif ah oxygen waxaa laga yahay sabab sanbabka marka laga daraya dhiig oo cardiovascular systemka kadib habdhiska dhiigii sidaas ayuu ku sii soconaysaa marka intaas hadaa ku soo koobno waxaa jira marka waxaa raacsinayna wax yar oo ugu hadli doono marka systemka cudurrada ku dhaca cudurro aad iyo aad u badan ayaa ku dhaca marka kuwa ugu caansan oo xoogaa isdhahnay ayaa soo qaadanayna oo ah marka cudurka koowaad oo ah cystic fibrosis waa cudur ku dhaca waa cudur genetic ah oo qofka ka dhaxlo waalidiintiisa marka cudurkan wuxuu ku dhacaa marka waxaa fadhiisanaya wadooyinka haddii ahaleed maxaa la yiraahdaa respiratory ayaa waxaa fadhiisanayo marka thick mucus ayaa fadhiisanaya waxyaabo oo sida xabag oo ayaa fadhiisanaya oo marka sidoo kale waxyaabahaas waxaa lagu arkaa pancreaska oo kale waa lagu arkaa tubooyinkan oo maxaa la yiraahdaa oo dhanka kaadida iyo waxaasna way fadhiistaan marka thick mucuskaas marka wuxuu sameynayaa marka waxyaabihii soo mari lahaayeen iyo xaaqadii in la soo saaro waxyaabahaas ayay marka ka hortagayaan in la soo saar ayay diidayaan marka waxay meeshii wadadii ay isbaaro dhiganayaan sidoo kale waxaa jira marka asma ayaa jirto oo ah cudurka neefta waxay kamid tahay idana cuduradan ku dhaca respiratory-ga sidoo kale cudurkan kale oo ku jirto waxaa kamid ah cyanosis oo ah marka bluish color qofka inuu noqdo korkiisii qaybo kamid ah inuu buluug noqdo waxaa sababta marka iyada oxygen la'aanta qofkii jirkiisa in ay ku yaraato oxygenka marka intaas ayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijkeeni hada wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.